سورة الفلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi اlfalaq, waa beriga ka u rabbiga a baan magan galay, allah baan magan galay. min shari maa khalaq, waxaan ka magan galay min shari maa khalaq, ay min shari aladii khalaqah, kuu ilaahay abuuray sharkiisaan ka magan galay. ama min shari maa khalaq ay min shari اlkhalqi, yacni khalqiga sharkoodaan ka magan galay. wa min shari ghaasiqin, habeenka sharkiisaan ka magan galay, idaa waqaba markuu habeenku madoobaado. darfiya maxdiya looga jeeda, daraf maxdi ah aan macno shardi ku jirin. wa min shari الnafaathaati, kuwii tuftufista badnaa sharkoodii baan ka magan galay, fi lcuqadi, guntimaha markaa ku tuftufaayey. wa min shari xaasidin, mid xaasida sharkiisaan ka magan galay, idaa xasada, markuu xaasido bimacnaa xasadka muujiyo. saddexdan suuradood waa saddex suuradood oo waaweyn weeyi. labadan suurada kale mucawidatayn baa la yidhaahdaa. labada suuradoodba waa madaniya. culamada qaarkood waa makiya yidhaahdeen. qolyaha masaaxifta daabacayna waxay ku soo qoreen inay makiya yihiin, laakiin labada qul acuudu waxaa arjaxa qowlka odhanaya waa madani, mid waliba waa madaniya, qowlkaasi arjaxa. waxaanay soo degeen markii nebiga la sixray sala allahu alayh wasalam ayay soo degeen, oo nebiga waxaa sixray nin yuhuudiya oo labid ibnu acsam la yidhaahdo ayaa sixray. yuhuuddu sixirka aad bay u isticmaalaan. sixirkuna wuxuu ka mid yahay yacni afcaasha iyo camallada gaaladuu ka mid yahay. ninkaasi wuxuu ku sixray yacni markaa midhadh tima ah oo nebiga ka go'ay, iyo waxa weeye yacni shallada lagu feedho, yacni markaa wax markaa ka midoo ka soo go'ay, yacni shalladu ku feedhanayay ilkaheedii wax ka mid a. intaas aasaartii intaasuu sixirka ku qabtay. dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam nowcan maa xoogaa yacni markaa takhayula ayuu dareemayey. sixirku si weyn uma saamayn, laakiin wakhtiyada qaarkood ficillada qaar oo reerkiisa iyo ku saabsan inuu waxyaalaha qaar sameeyey isagaan samayn ayuu ismoodsiinayey. intaa yara takhayulkaa ku dhacay, laakiin miduu caqligiisii raadeeyey oo beddelay ma aha. sixirka caynkaasi waa jira, axaadiis saxiixa ku soo aroortay, nebiga waa la sixray. dabaed markaa nebiga waxaa lagu soo dejiyey labadan suuradood. jibriilyana waa u yimaadeen, laba malag oo uu jibriil ku jiro. markaasay dabeedna nebiga u sheegeen inuu markaa sixran yahay, wixii lagu sixrayna in ceel lagu riday. ceelkiina waa u sheegeen. nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood buu ceelkii u diray. ceelkii baa lagu daadegey, ceelkii baa laga soo saaray, dabeedna markaysa markaa waa la gubay. sixirka haddii la helo, waxa ugu fiican ee lagu daweeyaa waa in la gubo. in la guba ugu fiican. sixirka in sixir lagu daweeyaa ma bannaana. oo nebiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey su'ila can nushra qaala hiya min camali shayطaan, furdaamiska ka warran baa lagu yidhi. yacni sixirka sixir lagu furdaamiyo shaqada shayطaanka ay ka mid tahay baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam. waana xadiid haabit oo sugan, imaam axmed wakayruhu soo wariyey. marka sixirkii in sixir lagu furaa ma bannaana. waa in markaa ruqyo iyo markaisaga qur'aan iyo yani markaa ruqyo in loogu maydho iyo in waxa weeye markaa yani saas waa in lagu furdaamiya oo lagu furaa, iyo duco ilaahay markaa la baryayo, taasaa lagu furdaaminaya. laakiin sixirkii in sixir lagu furo loo adeegsadaa mid bannaan ma aha, waa xaaraan.
daruuro iyo wax kale toonna ku bannaanaan maayo waayo kufriga daruura ma bannayso markaa nebigu salى اllahu aleyh wasalam labadan suuradood buu akhriyey dabeedna markaa sixirkii waa ka furmay sixirkii waa ka furmay waxaanuu nebigu tilmaamay xadiis kale lam yatacawad mutacawid bimilihima yani labadaas suuradood baa laygu soo dejiyey buu yidhi oo yani mid markaa wax magan galaa laba la mida ma magan galo saas aawoodee akhrinta la akrinaayo habeenkii iyo subxiiba waa in la badiyaa qul huwa allahu axad iyo labada qul acuudu yani saddexdaas waa in la akhriyaa subxii waa in la akhriyaa habeenkiina waa in la akhriyaa sunnaha nebigu le wuxuu ahaa marka uu habeenkii jiifsado 3 goor inuu baabacooyinkiisa ku akhriyo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi الnaas dabeedna uu ku tufo dabeedna markaa madaxiisa iyo jidhkiisa intuu ka gaadho u mariyo mar labaad sidii sameeyo mar uu ismariyo mar saddexaad sidii sameeyo isna mariyo gaashaan bay markaa sixirka iyo isha iyo shayaadiinta ay ka tahay iyo jimanka habeenkii iyo subxiiba waa in la sameeyaa in la akhriyo habeenkiina marka la seexanayo waa in saa la ysugu tufaa la ysu mariyaa ta kale waa in marka aayatu kursiga akhrigeeda waa in la badiyaa alcalaamaةu bnu kasiir fii tafsiiri suuraةi اlbaqara wuxuu ku yidhaahdaa sixirka waxa lagu daweeyo waxa ugu anfac badan aayadda aayatulkursi la yidhaahdo iyo mucawidataynka anfac yani markaa waxa u ah oo ugu nafci badan aayatulkursiga iyo mucawidataynka waxaa laynaga kari la'yahay war laazima kuwa akhrintooda ya marka horeba waxa waa in la iska laazimaa carruurta xataa waa in lagu barbaariyaayo markaysaga kuwa yaryar ee bartay waa in la yidhahdaa markaysa markaa subxi iyo habeenkii akhriya qol walliya ma akhriday markaa iyo labadii qul acuudu iyo aayatu kursiga iyadaan markaa ilmaha yari aanu gaadhinba aayatu kursiga waa in la sii baraa aayatu kursiga waa in la yidhaha akhri habeenkii waa in la yidhaha akhri marka sidaa loogu celceliyo marka dambe wuu ka caado yeelanaya yani waa in lagu tarbiyeeyaa inuu markaysa markaa habeenkii akhriyo subxiina akhriyo muddada hore o dhan waa in la kaantaroolaa yani saas yadaa lagu sameeya marka aad iyo aad bay markaa muhim u tahay